jiirkan ayaa si lama filaan ah u liqay hilib miro oo isbedelay. Kadib fayraskii ku jiray hilibka ayaa si degdeg ah ugu fiday jirkiisa. Ugu dambayn fayraskii ayaa cunay jirkii, waxaana jirkiisa oo dhan bilaabay inuu kariyo caws cagaaran oo kale. Xitaa dadkii marayay ma aysan dareemin jiritaankiisa. Markii hore cidina ma danayn masiibada ilaa ay si dhow ula xiriirtay qof walba. Hadda waxaan arki karnaa in cawskii cagaarnaa uu si degdeg ah u korayo isagoo ka soo baxaya dildilaaca dhulka. Wax yar kadib wadooyinka waxaa qariyay cagaarkiisa. Waxaa ku xigay wadooyinkii, baabuurtii iyo xitaa dhismayaashii dhaadheeraa. Wuxuu bilaabay inuu la wareego magaalada oo dhan. Aadanuhu aakhirkii way lumeen, adduunkuna wuxuu noqday mid degan. Tartiib tartiib cawskii wuxuu bilaabay inuu yeesho xidido iyo laamo si waali ah u fuulayay dhismayaasha. Jiridgeeda waaweyn ayaa bilaabay inay kor u kacaan. Wax yar kadib dhismayaashii magaalada waxaa gebi ahaanba qariyay dhir. Marka meel sare laga eego, dhulku wuxuu isu beddelay bad cagaaran. Kadib ubaxyo guduudan oo yaab leh ayaa ka soo baxay xididadii. Dabadeed miro madow ayaa ka soo dhex baxay ubaxyadii. Laakiin markii mirihii ay qarxeen, dhammaan dhismayaashii dadku dhisay waxay bilaabeen inay dumaan. Magaaladii waxay isu beddeshay burbur. Ugu dambayntii cagaarkii wuxuu ku fiday qaaradda oo dhan iyo xitaa meeraha oo dhan. Meerahii cagaarnaa wuxuu isu beddelay miro qudhunsan. Laakiin haddii aad rabto inaad daawato filimkan gaaban, waxaa la yiraahdaa Urabeed.